me finish إلهي إن لقى عبسنا وفي عنده أبو كل مالي سؤاشنا كويدنا جبوتي مركن جوبني ورواحا وسنانيقا يا سينكا إيجاوي سينكا مارت أجاوي أجاكس محبه أبو فيروس أنتو تقولنا والله بالله خفني منا يقولي ما أركب أبو كل مالي أنت أي ماتي ميدا هذا محاكو هاي معناها حالة سوي ميدا نيويدس أبو كل مالي بيرسونال ينقل هذا عنيقا كذا كراب من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان Soomaalida adduunka meel walba caalamka ay ka joogaan maalin wanaagsan sabti wanaagsan duhur wanaagsan galab wanaagsan intaba insha Allah baryahan dambe waxaa ka jira dagaalka adduunka dhinaca riwaayadaha xamraawiga uu hogaaminayo Abuukar Mahdi aad iyo aad laisku baabiyay laisku jactaday eeday qabsi aan xad lahayn oo ka socdo ayaan jeclahay inaan xoogaa idin maqashiyo waxyaalaha ay ku hadlayaan iyo dadkan eeda ay ka tabanayaan ninka la yiraahdo Abuukar Mahdi waayahay Abuukar Mahdi oo dadkan waa Soomaali adigana saan jeclahay waxaad tahay nin Soomaali ma fiicna inaa adiga aad macnaa mar walba aad fiirsato danahaaga waana u badan yihiin dadka cadcadka inay saas dhaqankooda saas u yahay uu u badan yahayba macnaa inay fiirsadaan danahooda gaarka bes oo tan dadka ay leeyihiin ay waxba ka soo qaadin macnaa mar walba iyaga ay baadilaan oo macnaa mar walba iyaga ay isla jiraan laakiin arimahaas oo kale waxaa la yiraahdaa qofka daneyste ya reer xamarkan waxay dhahaan aqligaaga haduu bato macruufkaagu kugu diraa marka Abuukar saan arkaayo ayaamahan dambe wuxuu egyahay nin aqliga ka badbatay aqliga ka badbatay dhulku ka daadaadanooya ma fahmi marka saaxiib Abuukar in badana lagu eeday in badana dad xumeysay waxa oo Soomaali ee adiga riwaayadaha kula jilaayo dhan ma adiga ka gar leh waa maya marka Soomaalinimo la isku hadlo oo xog hoose loo waramo kulligood adiga ma ka aqli badisid macnaa kulligood iyaga adiga ma ku dulmaayaan gabi ahaantood bacnaa adiga beenka ma sheegayaan fahmi haduu mid ku dulmo oo laba uu ku dulmo oo saddex ku dulmo laazim kan afraad adiga waay oo dadka dulmaaya adigana waa soo galay insha Allah sababtoo ah qof kaligiis wax ma dulmo ilaa waa la dulmaa oo maahina marka Abuukar hooshaada adiga waa dheer tahay waxaad jeceshaa dadka inaad ku daneysatid ku daneyso muxuu waxa la yiri walaalkaagan wax u garo adna wax isku qaad adna wax isku garo walaalkaagan wax u garo qofka markuu fiyooyahay inuu ninkaaga yahay markuu xanuunsado aad ka daba tagin intuu ku dambeeya aadan dhihin edeb darro waa waxaas Soomaalida kale way kula fahmaysaa yastiin aad u aragtaa laakiin yastiin maahan waxaad diidan tahay qofkaas mas'uuliyadiis inaad qaadid ilaan shala adoo ku shaqeynaya isla jirteen hadaa maanta raadisid oo doontid oo tiraado warninkii waa xanuunsan yahay bal maxaa laga soo sheegay in xoogaa macnaa jeebkaaga uu taawanayo saasaan u arkaa raay ahaanteeda aniga marka jeebkana waa ku khasban tahay waxaa la yiri maxaad qabtaa qalbigu u roon yahay qofka inaad dul istaagtid adigoon wax siineen anaga Soomaaliyaana siismada ku xunnahay waa la ogyahay laakiin waxa ka si fiican adoo af macaan qofka oo la dul istaagtid tiraahid warniyo see wax ku gaareen warniyo see lagu hayaa yaa cudur qof walba cudur soo mara geeri qof walba soo maree maxaa la dhahaa fiyowaan iyo jirrabo intaba ilaaha wato ciday u khaas tahay mala iyo geeridaba marka walaalkay macaan waxa sameynaysa aad iyo aad ugu xuntaa nin weyn aad tahay malka mood kale ku dhiman oo in badan meel badan ka soo shaqeey ilaa Djibouti meelahaas carcaraya tahay waxaana kama ahaan kartid oo irsaaqaada ku jiro oo noloshaada iyo shaqadaada dhanba saad u soo baxday ilaa haddaad waxaan ka shaqeysataa ummadii kama maarmaysid maraad gabdhaha dhexdooda isku dirtid maraad gabdhaha dhexdooda kaamira dhex dhigtid oo duubtid maraad Soomaalida waxaad gilcada u tahay reer xamada u tahay inkastoo reer xamarka qaar fiican ay ku jiraan laakiin isku dirdirkaas iyo dhexdooda inaad dadka is aadisid dadkaas caan iyaga ku waa lagu yaqaanaa Soomaalidina dhinacaas macnaa break yihiin ma fahmaan saas wax ma fahmayaan Soomaali waxa way maanta waa kula jira wuu ka jeestay labada jidkaas u banaan laakiin adiga waxa sameynaysid Abuukar Mahdi waana kula jira waana ku cunaa
qofkii korna hey aad ka leedahay hoosna waa ku cune waa sheekadii dadka lagu yaqiin marka inkastoo qabiil kasta ama Soomaali walba oo nooc walba ahaado mid xun iyo mid fiican ba uu leeyahay adiga haddana waxaa tahay dadka hoos ka cuna oo kor dadka uga qosla hoosna hooshiiska wato waxaan YouTube waay ani waxaan balayaabana nimankan weyn oo ninkan u adeegay may ka tashadaan oo iyaga nafsad ahaantooda ay YouTube u sameystaan ay iyaga isku filnaadaan ay shaqeystaan maxaa u diido iyaga hoos keenay qalabka waay qalabka 1 bil iyo 2 bil 3 bil ayuu tagashad qalabkaas ku soo gadada ku filan inkastoo ay macnaa isku dir ahayn oo eed aan dhamaaneen qof walba in la qanciyo rabaa ninkan qancintu uu ku hooseeyo ninkan wuxuu macnaa wuxuu wataa danihiisa gaarka ah waa fiyooda waa ku shaqeynaa waa jirinta adaa jirtay waa dhimata ada Allah ku naxariista xataa hadii laga helo waa nasiib idin meesheeda taala marka Soomaali weyne maalin kasta qofaas oo dacwoonaa maalin kasta kooxda oo kamid ah oo kurmahad qofaas oo oonaa soo cawaada daraad gabdhuhu isku diray magaceedi adduunyo isku baabiyo isku dirdir marka haddana waa ka ragiyo dhaxgal ninkan ee tamaay dhahay macna boss waa ninka riwaayada ma sha Allah 100% ninka kala wada asi imaariis carbon iyo Venus shaqday marka ninkii maanta adduunyada dhan kala kaxeynay boss baas hadii aad haddana aad isku daydo inaad xumayso sidanaay aad ku sameeyso haddana aad jeclayd ilaa nin rag waaye naag waxay ahaataba waa la dhayalsan karaa laakiin ninka waxba qalbigiisa aad dhaawacaysa nin jirno sariir saar aad korkiis jaad iyo secret ku cabiyo ku cune jaadki secret ma ku cusub nin odaya taani waa yeelata isku xisho umada aad nafsiga ka galeys iska dhaaf qofka hadii aad rabin ka maarmo orodka danayso dad kala raadso waana la jirtaa waana ka sii jirtaa iyagii dhexdooda Soomaalida aad isku dirdiree waa taqaanaa waxaas tan Djibouti oo ku shaqeysanaysa hawshaas si fiican aan ku aqaanaane marka waxaad sameynaysaa walaalayaalo ninka odayga ee iska qabta ka daneysta ha u jixina daraadna waxaan maqlay waxaan jeclahay inaa idinka dhagtiin ku maqashiin faadimiino iidan ee tameeso waxay dhahdane dhageyso wacan dhagihiina ku maqla idinka Soomaali weyn waxa fiican garta ilaahigeeda leedahay ninka odayga ee in dhulka lagu jiido wuxuu galay wuxuu gud loo sheego waxba yaa loo qarin ninkan waa nin umada dhididkooda ku shaqeysana aan u ogoleen inuu yiraahdo maana waa saxsantaa ama waa qaldantaa labadaba hooyada idoo dhimato hal maalin xataa inaa isoo wacdahay faadimiin si calooshaata si qalbigaya ma isoo dhaca Facebook taade faadimiin warahoy dadka adiga riwaayadahaada iyo TV-gaada iyo qashinkaada ku waashtin yani ma kafti before an harkaada xabadeenin respect yourself marka asxaabe faadimiin say ku soo hadasho waa maqasheen meesha wax la dhooroy malaha wala cidihiisi wala kuwi kale wala kuwa banaanka yimaado malaha waa nin dan leh oo haddana indha adeeg qofku waxa markuu macnaan oo nolosha xaasidnimada uu ku daahsidaan oo kale u dhaqmaa gabadhan waxay tiri hooyaday dhimatay tiri war maxaa xaaladaada ee xataa waa isoo dhihiweysay xasbi Allah nimcan wakiil subhanallah bal fiiri xaasidnimada heerkaas gaarsiisan ka waran war nin iska dhaaf maanta oo muslim oo gawr walaasha oo Soomaali oo kula shaqeynayso dhinacaaga fadho har iyo habeen garabkaaga taagan oo ku hagar baxdo intaasoo 100,000 madaxooga aad ku heshay oo maanta aad dhiin hooyadaada Allah u naxariisto iyo Faadumo maxaa dareemaysaa walaale aad dhiiweysay calool adeeg heerkaas gaartay xasbi Allah nimcan wakiil waxa waaye tagtabti maada ka badan ninkan horu waa dhaantay koodhe horu faraha uga baxay waxaan idin leeyahay Soomaali weyn gacan bir ha lagu qabto ninka odayg ee wuxuu meertidiisa la marsiyo la marsiyo asay iyo labada naag oo dawad isku wato Hiblay Mahdi Hiblo Mahdi la dhahay waa xaasidiin kuwan hadday ku soo darsamay awalka hor ma haysanin hadda ku soo daray oo walaal ku sheegay iyaga waa wax godka dhan qoday wax dadka ku diraayo wax adduunyada dhan kala subhanallah irsaaqada soo saartay dhiiga muslimka iyo dhididka muslimka inay baabi'iyaan oo haqa dadka ay ka galaanay soo saartay asi iyo walaalihiisa waxay u soo jilba dheeraadeen inay dadka korkooda wax ku cunaan ilaan Ingiriiska nin walba biilkiisa ha shaqeystaa la yiri ma dawlad beebeenta wax loo qaaday iyo lacagtii caadiga loo qaaday waa dhamaad nin walba wuxuu shaqeystaa ha cunaa la yiri marka uu kurmaadiyo aad dhididka dadka ma cunee marka dadka haqooda ma cunee
qof jiro maraadinaysid xaquu kugu leeyahay riwaayo kula suubinaay waa jiifaa inaa u tagtid xoogaa lacag aad soo siisid oo ood qofka soo intersaaraysid ma yeelaysid hay gabadha hooyadeed dhimata allah u naxariista ma dhehaysid iyagii dhexdoodaad kaamirka duuwe rikaataad ugu haysanee ciyaal suuqnimo weyn waa nin oday ahoo ciyaal suuq ayaa tahay niyo war yaa isdhee wax iskula tar insha allah waxaan ku tuugaynaa intii ummadda saan u baabi'inays adigana wax ku baabi'ino ilaahay hoostaada kaa siiyo gabdhaha kaamirad maqaasiimada iyo meesha dharka ay ku bedelahayn aad ugu duuwe aad u geline hadhoodin waxaad leedahay rikaataan kuga haastaa haddaad filinkeyga ama riwaayadee aad samey weyso waa ku rikaateena ama sawir qaabinaan kaa haayaa ka waran dhuxmadaas ma jeceshaada walaasha in saas lagu sameey qasiisaad tahay xaaraan baad tahay wax iskula harniyo ceeb waa isku xishoo naaga aad baabi'inaysa iyo ragga aad bahdelaysa insha allah waxaad tahay lama yaqaane daneystaa tahay tuugaa tahay waa kusoo sifooda waxaan cumrigaaga kusoo gaabta inaad naagaha iyo nimankaba xaqooda aad gashood naagaha cooradooda aad aruursato marka insha allah asxaabay soomaali weyne waxaa fiican qof walboo qaldan yaa qaladkiisa in loo raacin wuxuu galay wuxuu gudla sheegay ninkan intaasoo qofa ka dacwoonayso koodhe haddana ma laga yaabo inay soomaalida kale ay xumaato mar walba asaga le uu gar lahaado waa tuug dhaafo waa ninkan hala qabto bulshada ha laga qabto youtuberka ha laga qabto ha lagu caayo ha lagu bahdalo wax alla wuxuu galo iyo wuxuu gudo hala sheego si uu macnaa u gareysto laakiin marka uu naa kaamir uu ka duwo dho u rikaatay cooran ka haya dar kale fili ii samee haddaa diidad uu dhahayo waxaasoo kale waxaa imaanaya marka rikaata imaanaysa ood idinkan u sacbisiin asagana waa kasii daraa ilaan qofka qof buuxu maa alkulisto waa kulli wax meesha ku jiro insha allah asxaabteeda qiimaha ay qaayaa mudan af iyo idinba ha loogu dhiciyo ummadda soomaaliya ninkan dadka dhiigooda ka shaqeysto insha allah asxaabteeda janalkeyga farxiyo ibraahim soo dhawaada wixii xun ha layska qabto wixii xaq in ha lagu hadlo garta ilaahaygeeda leedahay ujacaabadnimo ma fiicna qof aad taqaan ma kulli hawadaasaa layska yaqaana haddana qof walba qaladkiis waa in la gareysiiyaa marka saas waaye sii gudbiha gaari gardarada iyo dulliga uu ummadda ku haayo ummadda soomaaliyeed ha arkaane gaarsiiya insha allah welcome asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha mudan nin walboo xun haddii layska qabto soomaalida ma isbaabi'iseen insha allah qof xaqiisa qofka kale inuu ku tunto waa xaaraan soo dhawaada waa farxiyo janal welcome sheerta iyo liketa waa dhinacaaga insha allah commentigan ha loo wada sinaado bye welcome to farxiyo janal